السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالكسو دوادا ورك وقدم بيه الصوماليا. دولة فدرالك الصوماليا ايا وركسو صارتي كيسك بدا كدي مركي اي سوعلي سي حريرك كينيا. محو عمر عبد الرشيد علي شرماركي كيري ديب سوعلينتي حريرك الصوماليا ايا كينيا. محو اها اوتشيدك وطالياها بوليسك قريقيس وقوتيغي حسن شيخ محمود. haddaba daawada aynu ku bilownay haddaad nagu cusub tahay subscribe share iyo like asxaabtaada kan la sii wada gambaleelkana furo si wararka ugu dambeeya markasta ay kugu soo dhacaan commentigan hoos noogu soo qor hadday xilliga salaada ku tahay daawadan waajibaadka la soo tukan uguna soo noqo warkiyo fidsan. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inaysan wax shaqo ah isku lahayn kiiska dacwadda badda Soomaaliya ee yaala maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya oo ay shalay dib u soo celisay. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii saacadihii ugu dambeeyay ay soo baxeen warar lagu faafiyay baraha bulshada iyo warbaahinta qaar oo sheegayay in labada dal ay kiiska badda ka gaarayaan xal ka baxsan maxkamadda oo ay garwadeen ka tahay Qatar. wararkaas ayaa intaas ku daray inuu madaxweyne Farmaajo uu tagayo Qatar. halkaas ayuu madaxweynuhu kula kulmi doonaa Uhuru Kenyatta si heshiiska loogu saxeexo. hase ahaatee ra'iisul wasaare ku-xigeenka xilka sii haya ayaa Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo sidoo kale hogaaminaya ergada Soomaaliya ee maxkamadda ICJ ayaa sheegay in kiiska ay maxkamadda go'aan ka gaari doonto. muranka badda waxaa dhamaystiri doona ICJ kadib markii dhageysigii hadalka ahaa laga soo gabagabeeyay March 15 ilaa 18 ee sanadkan. waxaa sugaynaa go'aan cadaalad ah. xiriir diblomaasiyadeed ee labada dal waa arrin gaar ah ayuu yiri Mahdi oo qoraal ku soo qoray Twitter-ka. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane عمر عبد الرشيد علي شرماركي ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo ku aadan dib u soo noolaynta xiriirka dalalka Soomaaliya iyo Kenya. عمر عبد الرشيد علي شرماركي ayaa shaaca ka qaaday in arrin lagu farxo ay tahay dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. sidoo kale waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo dhexdhexaadinta iyo dadaalada ay wado dowladda Qatar. waa war farxad leh dib u soo noolaynta heshiiska diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya. waxaan kaloo aan jeclahay inaan soo dhaweeyo dadaalada dhexdhexaadinta ay wado dowladda Qatar ayuu yiri ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Umar Cabdirashiid oo haatan ah senator ka tirsan golaha aqalka sare ayaa xusay inay tani xoojinayso ganacsiga ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. si loo xoojiyo ganacsigeena una gudagalno geedi socodka horumarka waxaa lagama maarmaan ah in dib loo soo nooleeyo xiriirkeena diblomaasiyadeed ee aan la leenahay adduunka ayuu hadalkiisa sii raaciyay mudane Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. si kastaba dowladda Soomaaliya ayaa khamiistii ku dhawaaqday inay dib u soo celisay xiriirka labada dowladood kaas oo horay u go'ay dabayaaqada sanadkii hore 2020 kadib markii ay dowladdu ku eedeysay Kenya inay faragelin ku hayso arrimaha Soomaaliya. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sareeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ay weheliyaan taliya ku-xigeenka iyo afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa hoygiisa ku booqday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. kulankan ayaa waxaa laga wada hadlayay qorshaha sugidda amniga musharaxiinta ee xilliga doorashooyinka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay taliska ciidanka booliiska. waxaa sidoo kale kulankaas lagaga hadlay fulinta doorashooyinkii amniga ee dhawaan ay gaareen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta ee Muqdisho looga saaray ciidankii badbaado qaran. taliyaha ciidanka iyo ku-xigeenkiisa ayaa sidoo kale ka cudur daartay dhacdooyinkii ka dhacay Muqdisho iyo in aysan ka jawaabin eedeymo uga yimid midowga musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya. ciidamada booliiska gaar ahaan kuwa loo yaqaano Haramcad ayaa horay ugu lug yeeshay weeraro ka dhan ah
musharaxiinta mucaaradka oo uu ku jiro xasan sheekh maxamuud iyo dagaalo ka dhacay magaalada muqdisho. in kasta oo ciidanka haramcad ay hoos tagaan booliiska, haddana waxaa si toos ah looga amraa madaxtooyada oo ay fuliyaan amarada ka soo baxa. ayaga ayaa badankooda loo adeegsadaa ujeedooyin siyaasadeed. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareeye gaas cabdi xasan xijaar ayaa 4 bishan soo saaray amar ku socda ciidanka oo u muuqda in lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqyadooda iyo howlaha ay qaban karaan. taliyaha ayaa faray dhammaan ciidanka booliiska in ay ku ekaadaan shaqadooda oo ah xaqiijinta amniga muwaadiniinta iyo hantidooda, si fiican ay ula dhaqmaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed. haddaba daawade waa naga intaas warkii ugu dambeeyay Soomaaliya. intaanu dib u kulmi doono waxaan leenahay amaano Allah.